wacan daawadayaal halkan waa Somali Press kuna soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in madaxweynaha Eritrea uu diiday in dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkiisa uu tababaray lagu soo celiyo Soomaaliya xog iyo macluumaad arintan ku saabsan iyo sababta uu Afweek u diiday inuu dhalinyaradaasi dalkooda lagu soo celiyo ayaad warkan ku daawan doontaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu amaanay in uu dalka ka badbaadiyay dagaal sokeeye xilligii ay socotay doorashada dalka markaas oo mucaaradka Soomaaliya ay ka cabsi qabeen in dhalinyarada Eritrea hadda joogta uu adeegsado doorashada falanqeen ayaan ku sameyn doonaa al-shabaab waxay mar kale xasuuq ka geysteen gobolka Hiiraan iyaga oo qarax miino ku leysay odayaal dhaqameed ka soo jeeda gobolka Hiiraan sidoo kale waxaad warkan ku daawan doontaan dowladda federaalka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday inay howlgal ku dishay 30 ka tirsanaa ururka al-shabaab qasaaro xoogan oo kooxdan gaaray iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalka kacdoonka al-shabaab ayaa daawan doontaan qodobadaasi oo dhan ayaad warkan ku daawan doontaan waa sabti taariikhda ay ku beegan tahay 17 September 2022 hadaad nagu cusub tahay daawada waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto kanaalkeena kadibna furo gambaleelka si warar kasta oo aan halkan soo dhigno aad u hesho hadaad like saarto muuqaalka waan kaaga mahadcelinayaa fadlan muuqaalkan ku share garay baraha bulshada iyo gruubyada Facebooka u diyaar garoow faafahinta wararkaasi aan ku bilaabay ugu yaraan 4 oday dhaqameed ayaa lagu dilay qarax miino oo lagula eegtay duleedka degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan sida ay xaqiijiyeen saraakiil iyo mas'uuliyiin amni weerarkan oo la tuhunsan yahay in ay ka dambeysay al-shabaab ayaa sida ay cadeynayaan macluumaadka laga helayo laamaha ammaanka wuxuu ka dhacay deegaanka Buuqaqable odayaasha geeriyooday ayaa ka mid ah 5 nabadoon oo la socday hal baabuur ama hal gaari ayuu raaciyay sarkaal ciidan oo magaciisa uga gaabsaday in aan loo ogolayn in uu la hadlo warbaahinta madax bannaan maamulka gobolka Hiiraan oo ay soo xigatay saxaafadda maxalliga ah ayaa intaasi ku daray in ay jiraan dhaawacyo aysan tiro koobin balse loo daabulay isbitaalada si loo badbaadiyo noloshooda waxaan tacsi u diraynaa ehelada dhammaan nabadoonada geeriyooday annaga oo u rajaynaynaa in Ilaahay ay ka helaan badal wanaagsan ayaa laga soo xigtay maamulka oo qoraal kooban soo saaray ma jirto koox si rasmi ah weli dusha u saaratay mas'uuliyadda falkan balse waxa muddooyinkii ugu dambeeyay deegaankaasi ku xooganaa dhaqdhaqaaqna ka sameynayay kooxda shabaab al-shabaab ayaa culays xoogan waxay kala kulantay dadka deegaanka oo ay hogaaminayaan odayaasha dhaqanka kuwaasoo bilaabay inay la dagaalamaan xoogaga gacan saarka leh al-qaacida wararkaas intaan ka bixin al-shabaab jab xoogan ayaa lagu soo waramayaa in lagu gaarsiiyay dagaalada uga socda dhowr jiho oo kamid ah Galgaduud iyo Hiiraan dowladda federaalka Soomaaliya waxay faahfaahin dheeraad ah ka bixisay howlgalo culus oo ka dhacay duleedka degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan kaasi oo lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen xoogaga shabaab howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa ka dhacay deegaanka Aboore oo qiyaastii 25 kilomitir bari ka xiga degmada Buulaburde halkaasi oo ay ku sugnaayeen xoogaga shabaab war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay saqdi dhexe gudaha u galeen deegaankaasi isla markaana ay bartilmaameedsadeen fariisimo ay kooxdu ku lahayd halkaasi dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in howlgalkaasi lagu dilay in ka badan 30 xubnood isla markaana deegaanka laga saaray al-shabaab sidoo kale dowladda ayaa xaqiijisay in ilaa 5 askari looga dhaawacay howlgalka ka dhacay duleedka degmada Buulaburde ciidanka xoogga dalka oo sii hayay xogta dhagarta argagixisada ayaa gaarsiiyay jab xoog leh iyada oo dhanka kale ay dhaawacyo soo gaareen 5 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya hadalkan wuxuu ku soo aadayaa iyada oo duleedka Buulaburde lagu dilay nabadoono ka soo jeeday Hiiraan waxaana dhacdadaasi warar iskhilaafsan ka soo saaray labada dhinac dowladda waxay sheegtay in al-shabaab ay u dhigtay qarax miino halka dhankeedana kooxda ay shaaca ka qaaday in lagu dilay duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha Mareykanka si kastaba Hiiraan ayaa waxa haatan ka socdo
dagaalo culus oo u dhexeeyo kooxda al-shabaab iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya maleeshiyaadka macawisleyda. waayahay gabagabada wararkeena ayaan joognaa. ugu dambeyn haddaan eegno, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli ku sugan dalka Mareykanka, halkaasi oo uu u tagay raadinta kaalmo military iyo in Mareykanka uu dowladda federaalka ka caawiyo soo afjiridda kooxda al-shabaab. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa khudbad dheer oo ku saabsan xaaladda dalka iyo qorshaha la dagaalanka al-shabaab ka jeediyey xarunta istiraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee CSIS ee dalka Mareykanka. khudbadda madaxweynaha oo aad u dheer waxaa lagu xusi karaa nuxurka ku jira in al-shabaab ay wajahayso kacdoon shacab islamarkaana uu ku socdo dagaal dhowr jiha ah. sidoo kale wuxuu Xasan Sheekh sheegay in guulo muhiim ah laga gaaray dagaalka hadda lagula jiro al-shabaab ee ka socdo qaybo ka mid ah Soomaaliya. sidoo kale Xasan Sheekh ayaa khudbadiisa ku xusay in al-shabaab meelo badan oo ka mid ah dalka ay ka qaado lacag canshuur ah. taasi ayuu sheegay in ay kooxda u suurtagelisay inay awood iyo dhaqaale ahaan dhismaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale markii ugu horeysay shaaciyey sababta uu madaxweynaha Eritrea Asias Afwerki u soo celin waayey ciidamada Soomaaliyeed ee dalkiisa uu tababaray. sababta ciidamada Soomaaliya aan looga soo celin Eritrea waxa ay tahay in madaxweyne Asias Afwerki uu diiday in dib loo celiyo sababo la xiriira khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jiray, ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay kulan ay su'aalo ku weydiisay xarunta istiraatiijiyadda iyo daraasaadka caalamiga ah ee CSIS ee Washington. Xasan Sheekh ayaa intaasi ku daray in Eritrea ay ujeedooyin wanaagsan ka lahayd tababarka ciidamada Soomaaliya. madaxweynuhu waxaa kale oo uu xusay in dowladda Eritrea aysan tababarin oo kaliya 5,000 oo askari oo Soomaali ah, balse ay sidoo kale qalabaysay sida uu hadalka u dhigay. sanadihii ugu dambeeyey dowladdii madaxweyne Farmaajo waxa ay khilaaf iyo xiisad siyaasadeed kala dhaxaysay siyaasiyiinta mucaaradka, kuwaasi oo marar badan ka digay in ciidanka Eritrea joogay loo adeegsan karay in dalka lagu qabsado. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay hadda ka shaqaynayso hab ay ciidamadaasi lagu tababaray Eritrea dib ugu soo celinayso dalkooda. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabadii xil wareejinta xilka madaxweynaha ka sheegay in uu Xasan Sheekh Maxamuud ku wareejiyey galka 5,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo tababar ku qaatay Eritrea. wuxuuna madaxweyne Farmaajo sidoo kale sheegay in sababta dhalintan dalkooda loogu soo celin waayey ay tahay in xiisad siyaasadeed ay dalka ka jirtay islamarkaana uu badbaadinayay dowladnimada Soomaaliya. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii dib loo doortay wuxuu 9kii Julaay socdaal ku tagay dalka Eritrea isaga oo soo arkay xaaladda ciidamadaasi lana soo kulmay madaxweyne Afwerki oo uu kala hadlay sidii loo soo celin lahaa ciidamadaasi. Xasan Sheekh Maxamuud intii uu mucaaradka ka mid ahaa waxa uu goob fagaara ah ka weeraray dowladda Eritrea oo uu sheegay in aanay Soomaaliya u haynin wax faa'iido ah, isaga oo haddana ku ammaanay madaxweynaha Eritrea Asias Afwerki in Soomaaliya uu u tababaray 5,000 oo ciidamo Soomaaliyeed ah islamarkaana uu qalabeeyey. waa hadal bar madow ku ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, mana jirto hadal hadda u furan isaga iyo siyaasiyiintii kale ee siyaasadeeyey xaaladda dhalinyaradii tababarka loo geeyey Eritrea. Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale intii uu mucaaradka ka mid ahaa waxa uu sheegay in dhalinyarada tababarka u jooga Eritrea laga qaybgeliyey dagaalka TPLF iyo Ethiopia. intaasi kuma ekeen hadalkiisa, waxaa kale oo uu sheegay in dhalinyaradaasi la iibsaday. sidee u aragtaa kala hadalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud mar uu Afwerki ku tilmaamay in uusan Soomaaliya waxba u haynin, marna uu sheegay in 5,000 oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah uu u tababaray islamarkaana uu qalabeeyey? sidee hadalladaasi isku qaadan karaan? waa naga intaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee Somali Press. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna. fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada nagu xiran adigoo subscribe saaraya kanaalkeenna. inta ku kulmeen oo wararkeena soo socda nabadgelyo.